Dani Alves leegii hore kooxda Barcelona sanadkii la soo dhaafay uma ahayn sanad wanaagsan wuxuuna liintu ku caawiyay xabsi waqti badan ayuu ku qaatay laakiin wuu ka soo baxay xabsigaasi kadib muxuu sameeyay laacibkan markuu ka soo baxay xabsiga wuxuu ka aarsaday ama ka argutay saaxiibadiisii qaabkay uu argutay Dani Alves mar haddii uu ka soo baxay xabsiga wuxuuna sameeyay Dani Alves xidigii hore kooxda Barcelona Paris Saint-Germain Juventus ayaa xabsiga liintu ku caawiyay sanadkii la soo dhaafay uma ahayn sanad wanaagsan Barcelona laacibkoodii hore ayaa December 2022 lagu soo eedeeyay inuu geystay kufsi maalmo kadib markii uu ka soo baxay xabsiga Price 2 oo kafaalo lacageed lagu sii daayay qiimo lacageed gaaray $1 milyan. Alves ayaa intuu xabsiga ku jiray kalinimo u dareemay iyadoo ay jirto in saaxiibadu ay aad u tiro badnaayeen xilliga uu ciyaaray kubadda cagta laakiin axdigii ay uga baxeen markii uu galay xabsiga markii saaxiibadii cilaayeen ayaa wuxuu go'aansaday in cid kastoo baraha bulshada uu saaxiib kula ahaa uu kula noqdo saaxiibtinimada gaar ahaan bartiisa Instagram-ka isagoo dadka uu followga u yahay eber ka dhigay dhammaan follow kala laabtay waana falcelin ka dhalatay in axdigii ay uga baxeen markii ugu baahi badnaa oo garabkiisa istaagi waayeen. Dani Alves wuxuu qayb ka ahaa ciyaartoydii daafaca lambarka labaad ka ciyaaray kuwoodii ugu wanaagsanaa markuu ka soo baxay xabsiga dhammaan bartiisa Instagram-ka ayuu kala laabtay followga dhammaan saaxiibadiisa eber ayuuna ka dhigay taa oo ka dhigan inuu ka aarsaday saaxiibadii cileeyay markii uu aad ugu baahi badnaa ama uu aad u rabay inay garab istaagaan ama ay caawiyaan kufsi ayaa lagu soo eedeeyay xabsiga waqti badan ku soo qaatay liinta ayuu ku soo cabay markuu ka soo baxayna falkaasi ayuu sameeyay oo saaxiibadiisii dhammaan kala laabtay bartiisa Instagram-ka followgii oo kala noqday eber ayuu ka dhigay waa uu baabi'iyay taa oo ka dhigan in wax saaxiiba uusan lahayn xilligan uu doonaynin saaxiiba inuu yeesho. Dani wuxuu qayb ka ahaa ciyaartoydii ugu wanaagsaneed ee soo ciyaaray daafaca kooxo waaweyn qaaradda Yurub ayuuna u soo ciyaaray xilli xulka Brazil xitaa ay ka hadleen arrintaasi iyagoo garab istaagay gabadhii dhibka uu geystay isaguna ay iska indhatireen maadaama uu ahaa qof dhibaato geystay. Sidee u aragtaa Dani Alves in saaxiibadiisii uu qaabkaasi kaga aarsado?